عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحورهاي ما أدري مؤغي تبع أنبيا من نبي كانوا أها أم لا مسميا وما أدري مؤغي ذا القرنين نينك الله يقان ذو القرنين أنبيا من نبي كان أها أم لا مسميا مقرنايو وما أدري سيدو كلمؤغي الحدود حدودها كفارات من دنب الاسكور دافامية لأهلها إهل كذا أم لا مسمايا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحوليه حي سدح شيبه إنو صن أقوانين أيو نوشيغا نبي عليه الصلاة والسلام مدكود وحي تحي نينك الله يقانو تبع وحوليه نبي عليه الصلاة والسلام تبع من نبي بو أها مثل نبي مئهان قرن مايو تبع أن القرآن كالوغو شيء الله سبحانه وتعالى وحوليه حي أهم خير أم قوم تبع marka tubcaasoo quraanka lagu sheegay ma nabi buu ahaa mise qof caadi ayuu ahaa ma garana ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sidoo kale dulqarnayn asigana quraanka ayaa lagu sheegay wayas'aluunaka can dilqarnayn qul sa'atlu calaykum minhu dikra marka wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dulqarnayn ma nabi buu ahaa mise qof caadi ayuu ahaa asigana aqoon uma lihi sidoo kale wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xuduudaha waxaa loola jeedaa qof baa dembi sameeyey tusaale ahaan qof baa qof dilay asagana waa loo dilayaa waa xuduud wey qof baa zinaystay waa la garaacayaa ama waa la dilayaa waa xuduud wey marka xuduudaas ma dembi dhaaf baa yacni qof hadduu qof uu dilo haddana loo dilo ma dembigii sidaas ayaa looga dhaafay wax looma haysta miya ama qof hadduu zinaysto oo guur uusan soo marin oo markaas la jeedalo la garaaco garaacitaankaas miyaa looga dhaafayaa dembigu uu galay zinada marka xuduudaha la sameynayo kafaari miyay tahay dembi dhaaf mise ma ahan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam saddexdaas ayuu sheegayaa midda dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam asigaa sheegay xuduudaha la fulinayo kafaare ay u tahay waa dembi dhaaf markuu xadiidkan uu sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aqoon muusan u lahayn laakiin gadaashan ayaa loo sheegay marka xuduudaha oo dadka lagu fulinayo dembi dhaaf ay u tahay ehelkooda marka middan dambe xadiidkaa ku soo arooray sidoo kale waxaa laga qaadanaya oo faa'iido ay tahay qofka hadduusan wax aqoonin inuu yidhaahdo waxaan aniga ma aqaano aqoon uma lihi inuu yidhaahdo ayaa la doonayaa waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam asigoo nebi ah ayuu wuxuu leeyahay waxaan ma aqaan ayuu leeyahay marka qofka hadduusan wax aqoonin ama aqoon uusan u lahayn waxaa fiican inuu yidhaahdo waxaan aniga garan maayo